bari hore waxaa ku fadhiyay carshiga reer Shaam boqor wanaagsan. boqorkani maalin walba waxa uu qaban jiray shaqo wanaagsan, waxaana lagu mashaqeeyey wax dhisid. mar walba oo qasnada maaliyadda ay soo gasho lacag, waxa uu amri jiray injineeradiisa inay dhisaan waddo ama ceel, ama inay dhisaan isbitaal ummadda waxtar u leh. mar walba oo ay dhammeeyaan dhismo, waxa uu ku amri jiray inay ku qoraan magaciisa xarfo waaweyn, kuwaasi oo lagu dhalaaliyey biyaha dahabka, si uu u kasbado sumcad. muddo dheerba kama soo wareegin xukunkiisa ilaa iyo magaciisa uu buuxiyey dhismayaasha, madaarista iyo meel walba oo ka mida magaalooyinka uu xukumo. maalin ayaa waxa uu iskugu yeeray injineeradiisa, isagoo xasuusinayo dhismayaashoodii ay horay u soo dhiseen. waxa uuna ku yidhi, nashqadooda waxaad mooddaa inay isku wada eg tahay. agtiinna ma ahan miya nashqado cusub? waxa uu weydiiyey bal inay nashqad cusub ay soo bandhigaan. way aamuseen oo cabbaar ayay fakareen. waxaa hadlay injineerada koodii u weynaa. waxa uuna yidhi, boqorow, sideed u aragtaa inaan dhisno masaajid nashqad wanaagsan, magacaadana kor u qaado, dadkana ay ku caabudaan ilaahigooda? boqorkii waxa uu yidhi, aad ayay u wanaagsan tahay fikraddaasi injineerow. waxaad bilowdaa dhismahaasi isla barriba. ku dadaal, hana kula dadaaleyno injineeradaada. wixii qarash ah oo ku baxayo aniga i weydii. cid kale oo wax ku darsan karto ma jirto. waxaan doonayaa magacaasi inuu aniga gaar ii ahaado, taariikhduna ay i xusto inaan ahay ninka dhisay masaajidka adduunka ugu weyn. hana iloobin inaad ku qorto magacayga far waaweyn. waxaa ku sii korortay boqorka cabsida uu ka qabo inuu qof wax ku darsado masaajidkan. waxa uuna u sheegay dadka oo dhan inaysan wax ku darsanin masaajidkan. dhismaha masaajidka waxa uu qaatay bilooyin, ilaa ay ka taageen magaalada dhexbartankeeda injineeradii. dadkana masaajid noocaani oo kale ah horay ooma aysan arag. masaajidka dhexbartankiisa waxaa ku yaallo magaca boqorka oo lagu sharaxay far waaweyn oo lagu dhalaaliyey biyaha dahabka. taasi waxay caddayn u tahay inuu isaga yahay kan dhisay masaajidka. waxaa la gaaray maalin jimco ah oo ah maalinta la furi doono masaajidka. waxaa soo baxay boqorka, waxa uuna soo aaday halkaa iyo masaajidka. gadaashiisa waxaa safnaa ilaaladiisa, qaar ay saaran yihiin fardaha. waxa uuna ka soo degay faraskiisa, waxa uuna gudaha u galay masaajidka. waxa uu fadhiistay booskiisa, waxaana hareeryaha ka jiray wasiiradiisa iyo madaxda. markii ay tukadeen salaadooda, waxa uu ku soo laabtay boqorka halkaa iyo qasrigiisa, isaga oo aad u faraxsan. waxaa soo galay hameenkii, waxa uuna aaday boqorka halkaa iyo gogoshiisa. kii uu seexday, waxa uu arkay riyo, isaga oo taagan masaajidka riddiisa, waxa uuna akhrinayay magaciisa. waxaa ka soo degay samada malag, waxa uuna ka tiray magacii ku qornaa masaajidka, waxa uuna ku qoray magaca haweeney. boqorka ma uusan garanaynin magaca haweentani. waxa uu ka soo toosay boqorka hurdadiisa, isaga oo aad u naxsan.
waxa uu naftiisa ku qaneeyey inay iska ahayd riyo. haddana waxa uu ku laabtay hurdadiisii. riyadii oo tabteeda ah ayaa haddana ku soo laabatay. haddana wuxuu ka kacay hurdada isagoo argagaxsan. waxa uu isku dayey inuu fasiraad u helo riyadani, laakiin waa uu u waayey. haddana wuxuu isku qaneeyey inuu seexdo. mar saddexaad ayay ku soo laabatay riyadii. yaab ayaa ka soo haray boqorka. waxa uuna sugay ilaa iyo waaga uu ka baryo. islaantaasi lagu qoray magaceeda booskii uu ku qornaa magaciisa. yay noqon doontaa? maxayna tahay? xaggayna deggan tahay? muxuuse ugu qoray malagga magaceeda inta uu tiray magacayga? hase yeeshee oo muusan helin jawaab su'aalahani oo idil. markii uu waaga si fiican u baryey, waxa uu u yeedhay wasiirkiisa. waxa uuna ku yidhi, islaanta magacaasi leh ha la ii soo raadiyo, hana la ii keeno. wasiirka raaditaanka islaantani wax weyn umuusan arag. maxaa yeelay waardiyaasha qasriga oo idil waa ay yaqaaneen islaantaasi. waxay ahayd haweenay faqiirad ah, waxayna degganayd waardiyaasha barbarkooda. waxayna adduunkoo dhan ka lahayd mudul yar iyo beer aad u yar oo ay ku beerato midhaha ay ku nooshahay. markii ay hor timid boqorka, waxa uu ku yidhi, run ii sheeg, masaajidkaasi wax miyaad ku darsatay? waxay tidhi ayadoo cabsi la jaraynayso, boqorow ii aamin, waxba kuma darsanin masaajidkaasi. waxaan arkay oo keliya shamiitada dhagaxaanta isku celiso oo qallalan. waxaanan soo daray wadaan yar, waxaana ku waraabiyey dhagaxyadii oomanaa. intaasi keliya ayaan sameeyey boqorow, hana u malaynin inaan khilaafay amarkaada. waxa uu ku yidhi wasiirkiisa, ma maqashaa? islaantaasi waxay ku darsatay masaajidkaas kaalmo yar, laakiin ilaahay dartiis aniguna waxaan u samaynayay inaan magac ka helo. ilaahay waa uu ka aqbalay camalkeedii yaraa, aniguna igama aqbalin. boqorkii waxa uu amray in laga tiro magaciisa, laguna qoro magaca haweenayda. magaceeda ilaa iyo maanta waa uu ku qoran yahay bartamaha masaajidka. dadka oo idilno isha ayay ku dhuftaan, laakiin waxaa yar inta garanayso qisada islaantaasi. qisadiinu intaa ayay ku dhan tahay. fadlan, haddii aad rabto inaan soo badinno barnaamij noocan oo kale ah, waxaad ku dadaashaa inaad like saarto, janaalkana sabskaraib saar. mahadsanid.